Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada fiidiyogeena maanta. Waxa uu ku saabsanaan doonaa haween ay weynayeen ama qadariyeen xadaaradihii shucuubtii iyo diimihii kala duwanaa ee naga horreeyay kana horreeyay intaan iman diinteena Islaamku. Marka aynu ka hadlayno mowduucan waad suluugaysaa oo hore umaadan maqal ayaa laga yaabaa. Waxaadna maqli jirtay laab la caabudi jiray sida kuwa qur-aanka lagu sheegay. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوق ونسرا iyo kuwo kale oo badan se kuwani waxay ahaayeen dumar kumaysan badnayn xadaaradii hore ama wixii la caabudi jiray waayadii hore inaad hesho sanam ama wax la caabudo oo dhadiga amaba dumar ah taasoo qabanaysa howlaha muhiimka ee adduunka kuwaasoo maamulaya nidaamka maamulkooda ama hagaajintooda ilaalintooda taageeridooda iyo inay maamulaan marka la joogo dagaalka iyo inay ku ilhaaminayaan ciidamadooda awood iyo geesinimo iyo kuwo u ordayay taageerada xikmadda xoojinta barwaaqada shacabka lagana yaabo qaarkood inay ahaayeen kuwo ciqaaba dadka waa sida ay aaminsanaayeen xatxuur haazoor ilaahadii dahabka soo natiidi jirtay khayrka xatxuur waxa ay ahayd haween ay caabudi jireen diimihii qadiimiga ah ee Masar waxayna ku magacaabi jireen magacyo kala duwan sida ilaahada cirka ilaahada daryeesha haweenka ilaahada barwaaqada iyo jacaylka waxayna bilaabantay caabudidda xatxuur xilligii ay bilaabmeen boqortooyadii Masar ee qadiimiga ahayd magaceeduna waxa looga jeedaa macbadka xuuris waxaana la dhahaa mararka qaarkood in magaca xatxuur uu tilmaamayo halyey la oran jiray xuuris kaas oo ay minsanaayeen inuu ahaa ilaaha qorraxda kaasoo gala afka qorraxda habeen walba si uu ugu soo raaxaysto ama ugu soo nasto kana soo bixi jiray waaberiga amaba marka ay qorraxdu soo baxdo waxaana shaqooyinkeedii ay aaminsanaayeen inay qaban jirtay ka mid ahaa caydhinta sharka ilhaaminta khayrka ilaahada farxadda dabaaldega iyo jacaylka waxa ayna aad isugu xidhnaan jireen haweenka iyo jirkeeda waxa ayna u tixgelin jireen agtooda inay ka mid ahayd ilaahyadii bilowga ee laga soo dhambalay ilaahyadii kale ay caabudi jireen sida caadiga ah waxaa loo sawiraa haweeney madaxa ku sidata madaxa lo'da ama dhago lo'aad waxaana jira habab fara badan oo loo sawiri jiray mowduucan waxa uu bilow u noqon doonaa dhowr haween oo la caabudi jiray ama la weynayay. Assalaamu calaykum.